Bismillah, asalaamu calaykum waraxmah. Muuqaalkan waxaan kusoo qaadanaynaa wax la yiraahdo export, deck exporting. Ereyga export micnihiisu waa dhoofin, wuxuu la mid yahay waa output ama waa dhoofin, macnaha waxbaad banaanka u saaraysaa export. Marka deckska ama khaanadaha ma lagu samayn karaa export? Haa, dabcan waa lagu samayn karaa. Ujeedooyinka loo sameeyana waa arkaynaa, laakiin waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo noocyada loo sameeyo exportiga. Exportigu laba nooc buu noqon karaa: inaad khaanad export ku sameyso ama inaad collection export ku sameyso. Khaanad iyo collection, dabcan khaanadu waa deck. Deck iyo collection farqi baa u dhexeeyay, waa soo aragnay. Deck waa hal khaanad, collection waa khaanado badan oo isu tegay, waa decks badan oo isu tegay macnaha. Noocyada exportigu marka labadaas nooc bay noqon karaan: ama inaad khaanad export ku sameyso ama inaad collection export ku sameyso. Labadaas nooc midku doonaba ha noqdee, marka aad tiraahdo export marka aad sameyso, macnaha marka aad ku dhufato application-ku ama software-ku wuxuu ku kala dooransiinayaa ama uu kuu soo bandhigayaa laba option ama laba ikhtiyaar inaad kala doorato. Ma waxaad doonaysaa inaad qof kale export u sameyso, macnaha aad ula wadaagto, inaad qof kale share la sameyso khaanadan ama collection-kan, ma dad kale ayaad la damacsan tahay inaad u dirto WhatsApp-ka ama Messenger-ka ama meelahaas aad u mariso, mise adiga u baahan exportigan oo waxaad doonaysaa inaad maskaxda telefoonkaaga ama memory-gaaga inaad soo gashato? Labadaas qaabood weeyaan. Marka adigaana go'aan ka gaari kara, marka yacni rabitaankaagana ku xiran tahay waxa aad doonayso. Qof baa tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay orniyahow khaanadaasaan u baahanahay, khaanadaas haddaad ii soo diri karto ila soo wadaagi karto way fiicnaan lahayd. Markaasoo kale waxa waaye ujeedku inaad qof kale u dirto. Marka waxaad raacaysaa waddadii ahayd inaad qof u dirto. Adiga u baahday tusaale ahaan muxuu ahaa inaad soo gashato memory-ga ama telefoonkaaga. Waddadaas kaleeto ayaad raacaysaa marka waa labadaas ikhtiyaar ayuu ku kala dooransiinayaa. Waxaan soo tilmaamnay noocyada exportiga. Exportigu waa laba nooc: waa deck ayuu khuseyn karaa ama wuxuu khuseyn karaa collection. Deckska oo dhan inaad export ku sameyso ama inaad hal deck export ku sameyso. Ujeedada aad u sameynayso exportigana waan soo aragnay. Kow waa in muxuu ahaa aad damacsan tahay inaad qof kale oo saaxiibka ah aad la wadaagto khaanada ama collection-ka. Laba, inaad adiguba u baahan tahay oo telefoonkaaga maskaxdiisa ama memory-giisa ama haddii uu lacala flash kuugu jiro kale inaad ku shubato oo maaragtay sidaas aad export u soo dhahdo naftaada aad la damacsan tahay macnaha. Ileen khaanadu waxay ku jiraan application-kay ku jiraan. Waxaad doonaysaa inaad banaanka u soo saarto. Dabcan marka aad banaanka u soo saarayso khaanada export ama collection-ka aad export ku sameynayso, kama dhigna inaad meeshaba ka soo xaalufinayso oo soo cirib tirayso, kama dhigna. Waxaad sameynaysaa oo keliya copy la mid ah ayaad banaanka u soo saaraysaa mooyaane khaanada ama collection-ka banaanka uma soo wada saaraysid. macnaha application-ka ama software-ka anki kama soo xaalufinaysid oo kama soo tirtiraysid. Waddada keliya ee aad maaragtay uga xaalufin karto ama se aad uga cirib tiri karto collection kuugu jira ama deck kuugu jira waa inaad delete u taabato. Ma jiro waddo kale oo aad ku cirib tiri karto ama se aad maaragtay meesha uga saari karto gebi ahaanba software-ka aad uga saari karto. Sidaas bay ku bixi kartaa, laakiin exportigu wax dhibaato ah ma geysto. Keliya wuxuu sameeyaa copy la mid ah kaaga ayuu maaragtay banaanka u saaraa. Ama qof kale la wadaag ama maskaxda telefoonkaaga soo gasho, adigay kugu xiran tahay. Waxaan soo sheegnay marka exportiga la sameynayo laba nooc ayuu ku lug yeelan karaa. Ama waa deck oo hal khaanad baad export ku sameyn kartaa, ama waa collection-ka guud ama deckska kuugu jira oo idil ayaad export ku sameyn kartaa. Marka su'aashu waxay tahay waajib miya, macnaha ma isku xiran yihiin in labadaba la sameeyo, oo macnaha kan haddii la sameeyo kanna la khasban yahay in lagu sameeyo? Maya, kama dhigna.
waxay ku xiran tahay hadba xaaladda aad damacsantahay adigu. Deck export waa muxuu ahaa marka aad hal khaanad doonayso inaad banaanka u saarto adiga go'aansan kara. haddii aad doonayso inaad collectionka oo idil aad banaanka u saartana waxa weeyaan waad samayn kartaa. Deck export inta badan waxaa la sameeyaa marka aad doonayso inaad qof kale la wadaagto khaanadaas casharadu ay kugu jiraan, su'aalaha iyo jawaabuhu ay kugu jiraan, inaad kula wadaagto macnaha WhatsAppka, Messengerka iyo meelaha kale. Collection export inta badan waxaa la sameeyaa isagana markii aad adigu u baahan tahay. Adiga ayaa macnaha doonaya inaad soo gashato maskaxda telefoonkaaga. Arrintanina waxay muhiim tahay markii aad ka cabsato inay kaa kala daataan collectionka kugu jira inuu kaa kala daato oo khaanadaha maaragtay ay ka wada lumaan oo ama uu dhaawac soo gaaro kale aad ka cabsato ayaad collectionkaaga banaanka u soo saarataa oo aad maaragtay maskaxda telefoonkaaga soo gashataa. waanay dhacdaa dabcan wax la arko waaye oo tusaale ahaan waxaad arkaysaa fariin noocan oo kaleeta fariintan marka waxay ku kala dooransiinaysaa laba option waaye. labadaas option mid ayaad taabanaysaa marka haddii aadan ka war haynin ama aadan ogeyn waxa socda ama aadan fahamsanayn ma qurux badna inaad taabato waayo dabcan hal button un baa fiican laakiin kuu yahay ma taqaanid markana fiican mar kalena waxaa fiican kan kale laakiin waxay ku xiran tahay inaad fahamsan tahay horta waxa socda. insha Allah mar muuqaal waxaa noo soo socda aan uga hadlayno nidaamkan iyo soo shaqeeyo. waa nidaam muxuu ahaa marka si loo fiiriyo halistiisa wata, haddii si loo fiiriyana badbaado wata. marka muuqaal baan uga hadlaynaa laakiin mar raba inaan hadda muuqaalkan ku soo qaato ha yeeshee iska ilaali fariintan oo kale marka waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaawaca u geysanaya collectionkaaga isla markaasna adiga kugu kalifaya inaad sameyso collection export oo maskaxda telefoonkaaga aad soo gashato khaanadihii kugu jiray applicationkaas. kadib marka aad soo gashato khaanadihii kugu jiray marka aad telefoonkaaga maskaxdiisa soo gashato wixii dhacaya ha ka dhaceen waad la geli kartaa marka farsamadii iyo cilad bixintii aad ku samayn lahayd ankigaaga taasoo haddii iyadoo collectionkii ay kugu jiraan aad ku samayn lahayd dhibaato aad kala kulmi lahayd. marka waxaa fiican inay hal lug banaanka ku taalo oo collectionkaaga oo dhan inaad soo bixiso oo soo geliso maskaxda telefoonkaaga kadibna wixii muxuu ahaa farsamo ah iyo cilad bixin ah markaas aad guda gasho applicationkaas. marka hadda kadib maadaama faylkaaga banaanka ku yaalo wax kastoo ka dhaca wax dhibaato adiga kuma geysanayaan waayo collectionkaaga banaanka ku yaala. import ayaad dib u soo dhigi kartaa hadhow markaad cilad bixiso ayaad collectionkaaga soo gashanaysaa. marka muhiimadaas ayuu leeyahay inaad sameyso wax la yiraahdo collection export oo naftaada inaad muxuu ahaye aad u sameyso export inaad sameyso. ma wuxuu kaaga baahan yahay internet? maya, internet kaaga ma baahna, waa bilaash, waa offline applicationka anki. marka si offline ah ayaad u sameyn kartaa export sidoo kalena aad u sameyn kartaa import. intaas markaan kasoo hadalnay waxaan rabnaa marka inaan galno qaabka loo sameeyo deck export iyo qaabka loo sameeyo collection export. deck export si aad u sameyso waxaad dul tegaysaa khaanadda aad doonayso inaad exportiga ku sameyso. kadib waxaad leedahay long press oo waad riixaysaa, liis ayaa kuu soo baxaya. liiskaas kuu soo baxa waxaad ka dooranaysaa meel ay ku qoran tahay export. markaad ku dhufato export waxaad arki doontaa fariintan yar. fariintan waxaa ku qoran laba option oo kala ah include scheduling iyo include media. haddii exportigan khaanadan aad exportiga ku sameynayso aad la damacsan tahay inaad qof u dirto optionkaas ugu hooseeya oo kaliya ayaad tig saaraysaa kadibna waad yar sugaysaa xoogaha. waxay ku xiran tahay xaddiga casharka kugu jira khaanadaas. kadibna waxaad leedahay send ayaad leedahay. send markaad tiraahdo waxaa lagu soo bandhigayaa applicationska ama social media ay tahay inaad ku dirto. ma waxaad doonaysaa WhatsApp ahaan inaad u dirto, ma waxaad doonaysaa inaad Telegram ku dirto, ma waxaad doonaysaa inaad meel kale ku dirto. adigay ku taalaa markaa meesha aad u dirayso iyo qofka aad u dirayso. haddaan kasoo laabano meeshan sidoo kale meeshan waxaa yaala option kale oo ah include scheduling. include scheduling iyo include media waxaan dhahnay waxaad
tigta u saaraysaa oo keliya waa haddii aad damacsan tahay inaad qof kale la wadaagto khaanadan. Media macnaha waxay ka dhigan tahay sawirada ku jira khaanada, hadday codad ku jiraan oo kale, hadday clips oo muuqaal ah ku jiraan ay wadato oo kale. Su'aalaha iyo jawaabuhu haddii ay wataan sawiro, clips muuqaal ah ama codad oo kale, media la isku yiraahdaa. Qofka aad u dirayso marka u raaci oo macnaha media ha ka xasidin. Ileen khaanadaadu waxaa ku jira sawiro ayaa ku jiri kara, waxaa ku jira codad. Marka ha ka xasidin, tigta u saar. Isna wuu helayaa sida adigaba ay kuugu jiraan oo kale ayaa isaguna u arki doonaa oo maaragtay u heli doonaa. Laakiin haddaad tigta ka qaado isla markaasna aad u dirto, qofkaas wuxuu helayaa oo keliya su'aalaha iyo jawaabaha oo qarax ah. Macnaha yacni su'aalaha iyo jawaabaha oo keliya lama socdaan sawiro, lama socdaan haddii tusaale ahaan khaanadaadu ay wadatay codad ama clips muuqaal ah. Wax la socdo ma laha, waayo adiga ka reebay. Marka ha ka reebin, way fiican tahay inaad halkaas tigta aad u saarto marba haddii aad qof u dirayso. Haddii aad doonayso inaad adigu naftaada macnaha aad maskaxdaada aad soo gashato, maskaxda telefoonkaaga aad soo gashato, labada option waxaa laga rabaa inaad tig saarato. Kadibna waxaad leedahay okay, waad u kaadinaysaa sidii kii hore oo kale, waxyaabaad sugaysaa. Kadibna waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay save to file. File-ka la sheegayna wax kale maaha, waa maskaxda telefoonkaaga ama memory-gaaga. Markaad ku dhufato, si toos ah lagu geynayaa marka memory-ga iyo meeshaad ku save garan lahayd. Save ayaad ku dhahaysaa marka meeshaas. Sidaas waxaa maskaxda telefoonkaaga ku soo galay khaanadii aad soo dhoofsatay, export-iga aad ku soo samaysatay ayaa hadda kuugu jirta memory-gaaga ama maskaxda telefoonkaaga. Khaanad kastana waad ku samayn kartaa. Waa hagaag. Nidaamkaas marka waa deck export marka ay tahay. Ujeedada ugu badan ee loo sameeyana waxaan soo tilmaamnay inay tahay marka aad qof kale doonayso inaad la wadaagto ama qof kale uu kaa codsado khaanad hebel inaad maaragtay la wadaagto. Markaas oo kale ayaa la isticmaalaa deck export. Laakiinse adiga naftaadu hadday kaa qabato inaad export isku soo dhahdo oo maskaxda telefoonkaaga aad soo gashato, nidaamkan waa soo raacaysaa. Labadaas option ayaan soo sheegnayna, tigta waa saaranaysaa. Qof kale aad u diraysaa, option-kaas hoose oo keliya ayaa loo baahan yahay inaad tigta u saarto. Dhinaca kale, collection export qaabkee loo sameeyaa? Waxaad tegaysaa koornahaas midig ee kore, saddexdaas dhibcood ayaad ku dhufanaysaa. Waxaad ka dooranaysaa option-ka ugu hooseeya ee ah export collection. Kadibna waxaa kuu muuqan doonta baqshadan iyada ah. Baqshadan markaa sidii aan kusoo aragnay markaan export ku sameynaynay deck-ga, sidoo kale waad ku arkaysaa collection-ka markaad export ku sameynayso. Collection-ka markaad export ku sameynaysana ujeedada ugu badan ee loo sameeyo export collection waxa waaye waa markii aad ka baqato in ay wax kaa kala daataan oo ay wax kaa lumaan xogta kuugu jirta anki inay kaa kala daadato. Marka waxaa la rabaa inaad export collection-ka oo dhan, the whole collection inaad soo dhoofiso oo maskaxda memory-gaaga aad soo gashato. Ujeedada ugu badan ee export collection loo sameeyo waa inaad naftaada la damacsan tahay, naftaada inaad u rabto maskaxda telefoonkaaga inaad soo gashato. Way iska yartahay inta badan in loo adeegsado ujeedo ah in qof kale collection-kaaga aad la wadaagto, collection-ka kuugu jiro dhan inaad la wadaagto. Ma dhacdo inta badan. Mar haddii aad qof kale wax la wadaagayso, hal khaanad ama laba khaanad ama saddex khaanad ayaad export u dhihi kartaa oo yacni midba markeed aad u taaban kartaa oo export aad u dhihi kartaa. Laakiin collection-ka kuugu jiro oo idil ma dhacdo inta badan inaad qof kale la wadaagto. Adiga ayaa markaa nidaamkan export collection-ka isla damacsan oo ay muhiim ku tahay oo badbaadana ay ku tahay. Marka waxaa loo baahan yahay maadaama collection export aad sameynayso, ujeedada ugu weyn ee loo sameeyana ay tahay in qofka naftiisa uu maaragtay la damacsan yahay, macnaha maskaxda telefoonkiisa uu doonayo inuu soo gashado. Waa in labadaba aad tig saarataa, media-hana tig saaro, schedule-kana tig saaro. Schedule-kani wax kale maaha, waa qiimeynta uu anki kugu sameynayo. oo tusaale ahaan waxaan u jeednaa meeshaas buluug, waxaan u jeednaa yani nambaro buluug ah, nambaro midabkaas casaanka ah wata oo guduud ah, iyo sidoo kale lambaro cagaar ah ama akhtar ah. Waxyaabahan waxay yihiin waa arki doonaa. Kuwan buluuga ah waxaa loo yaqaanaa new cards, kuwan guduudka ah ama casaanka ah waxaa loo yaqaanaa learning cards, kuwan cagaarka ahna waxaa loo yaqaanaa graduated cards. Marka waxyaabahaasi waxay ka dhigan tahay waa qiimeyn uu kugu sameynayo anki,
waa qiimeyn uu barnaamijka Anki kugu sameynayo markii aad su'aalaha ka jawaabaysay. Su'aaluhu marka hore way cusbaayeen, markii dambe aad aragtay oo aad furtay su'aalahaasi meesha aad ku shubatay, xaalad kale ayay galayaan oo la yiraahdo learning base. Learning base-kaas muddo kadib way ka baxaan oo waxay galaan graduated base. Marka waa qiimeyn ayaan dhihi karnaa. Wax isku qasan ma jiraan. Marka schedule-kan waxaasuu ka dhigan yahay macnaha. Schedule-kan haddii aad tig saarato waxay ka dhigan tahay schedule-kaasna wuu ku jiraa export-iga aad sameynayso. Oo hadhow markaad import soo tiraado, wax walba sidoodii ayay ku noqonayaan oo qiimeyntaadina meeshii markii hore ay kuu taagneed ayay kuu taagnaanaysaa oo halkii ayay kasii soconaysaa. Wana fiican tahay. Laakiin haddaad ka qaado oo export aad tiraado, hadhow marka aad import sameynayso, kaararka ama su'aalahaas collection-kaas uu wato waxay ku imaan doonaan ama lagu soo dejin doonaa import lagu soo dhihi doonaa ayagoo new cards ah. Taasoo ka dhigan qiimeyntii lagugu sameynayo oo dhan waa tirtirtay. Wixii waqtigu kaaga baxayay meeshay ka baxeen. Marka dhibkeeda ayay leedahay. Way fiican tahay marka inaad schedule-ka aad tig saarto, media-hana aad tig saarto. Waa media-huna waa sawiradii, codadkii haddii ay wataan su'aalahaagu waxyaabaha noocaas ay wataan waad u baahnaanaysaa ay soo gasho oo maaragtay export-iga ku soo dar. Laakiin option-kan ugu horeeya marka aan qof kale wax u dirayno waan ka reebnaa sababtoo ah qiimeyntan aniga oo kaliya la igu sameeyay. Laakiin asaga uma baahna. Aniga iyo isagu isku maskax ma nihin. Oo qiimeyntan ana la igu sameeyay, ana su'aalahan ka jawaabayay, xaaladahan ana la socda. Laakiin qof kale haddii loo dirayo waa laga qaadayaa tigta. Tigta waa laga qaadayaa. Marka export-iga noocaasi ah ee tig la'aanta ah, qodobkaas hore tigta uu ka qaadan yahay, qofkaas wuxuu ugu tagi doonaa new cards ahaan. Qofkaas wuxuu ugu tagi doonaa su'aalo cusub oo bacda ku jira camal. Isagay tahay marka inuu kala shandaysto oo uu su'aalahaas ka jawaabo oo uu sidaa ku wato. Laakiinse haddii aad schedule-ka u saarto waxay ka dhigan tahay qiimeyntii adiga lagugu sameynayay ayaad isagana aad siisay oo aad u raacisay export-iga. Dabcan waxay ka dhigan tahay sidii adiga oo yiri oo kale salaada ayaan kaa tukaday. Hebelow salaadan kaa tukaday camal. Marka macquulna ma. Marka waxa fiican qof ma u diraysaa haa tigtaas ka qaad. Adigu ma isu rabtaa haa labadaba tig saaro. Kadib waxaad leedahay okay. Ugu waxaan hadda aan maartay wadno waa collection export. Collection export markaad sameynayso waa khaanadaha kugu jira oo dhan baad ayaad soo dhoofinaysaa. Markii la isu barbar dhigo collection export iyo deck export, tabta uu u wareeganayo collection export-iga waxa laga yaabaa inay qaadato waqti dheer maadaama waxa aad export-iga u leedahay ay tahay collection-ka kugu jiro idil, khaanadaha kugu jiro dhan iyo casharadooda. Marka loading-ka ama wareegaasi waxa laga yaabaa inuu waqti qaato. 1 saac laga yaabaa inuu qaato. Daqiiqada laga yaabaa inuu qaato. Marka waxay ku xiran tahay casharada kugu jira inta ay leeyihiin xaddi ahaan. Markuu ku dhamaado waxaad leedahay marka save to file. Save to file markaad tiraahdo waxaa lagu geynayaa maskaxda ama memory-ga telefoonkaaga. Kadibna halkaas aad ku save garanaysaa. Sidaasuu markaa collection-kani ku soo galay maskaxda telefoonkaaga ama memory-gaaga. Waxaana xusid mudan inaan soo tilmaamnay marka aad sameynayso collection export inuu ka xiiso badan yahay dabcan marka aad sameynayso deck export. Oo collection export waxaa loo sameeyaa marka aad cabsi dareento. Marka aad khalkhal macnaha application-ka fariintii aan soo arkaynay markii aad aad aragto oo kale iyo ama khalkhal kale aad dareento inaad markaas isticmaasho collection export oo ah nooc ka mid ah export-iga oo naftaada aad u rabto. Collection maadaama uu yahay inta badan waxaan dhahnay naftaada ayaad u rabtaa export ahaan. Markaad sameynayso export-iga naftaada ayaad la damacsan tahay. Markii aad deck export u sameynayso inta badan waxaad la damacsan tahay waa qof kale inaad u dirto. Qof kale oo ka codsaday inaad u dirto ayaa la sameeyaa. Laakiin se adigu waad soo gashan kartaa ugu. Waad soo gashan kartaa. Laakiin inta badan waxaa loo badan yahay markaad deck export-iga sameynayso
qof kale loo diraa. Markaad collection export sameynayso naftaada la damacsan tahay. waxyaabihii ay ahayd mid kasta in la sameeyana waan ka soo hadalnay oo tigta la saarayay. Markaad deck export sameynayso waxaa loo baahan yahay optionka ugu hooseeya ee ah include media inaad tig saarto ka kale aad ka leexato, waayo qof kale u diraysaa. qofkaasi ma doonayo ama looma baahna inaad u dirto schedule-kii adiga lagugu qiimeynayay inaad u dirto qofkaas ma qurux badna. marka waad ka qaadaysaa tigta, laakiin haddii aad collection export ku sameynayso labadaba tig baad saaranaysaa. qaacidada ugu weyn waxa weeye haddii aad exportiga naftaada la damacsan tahay, labada option ee baqshadu ay ku kala dooransiinayso waxaa loo baahan yahay inaad labadaba tig saarto. marba haddii wuxuu ay yihiin waxyaabo naftaada aad la damacsan tahay oo telefoonkaaga maskaxdiisa ama memory-giisa aad soo gashanayso, marba haddii ay yihiin sidaasaa laga rabaa inaad sameyso. dhinaca kale marba haddii wuxuu ay yihiin waxyaabo aad u dirayso qof kale, optionka ugu hooseeya ee ah include media ayaa tig la saaraa. kan kale tigta waa laga qaadaa oo waa laga dhaafaa.